Waxaan ahaa nin tuugo gaanjistar weyn ah, xabsigan mar dhow aan ka soo baxay. Noloshayda inaan beddelaan jeclahay. Xiriirkaygii horena saaxiibtay waan kala harnay. Waxaan rajeynaa shaqo wanaagsan inaan helo. Waxaan xiriir cusub la sameeyay gabar la yiraahdo Noora. Waxaan iska baranay aaladda Facebookga. Waxaan ku yiri hoteelka cidlaan ku ahaayay ima markaas i tiri waan kuu soo socdaa saaxiib. Maxamedow waan kuu soo socdaa. Habeenkii oo dhan waxaan daawanaynay TV. Waqti badan aan wada qaadanay, waan sheekeysanaynay. Markii dambe waxaan isdhahay gabadha ma shumisa mise ma dhunkataa. Waa gabadha aadaan uga helay way soo jeedatay. Laakiin markii dambe waxaan ogaaday gabadhan wax inay ka qaldan yihiin. Micnaha way aamustay. Hadal dhan wuu ka soo bixi waayay. Maray waxay tiri waryaahay Maxamedow waa ku dilayaa xaggee iga galaysaa. Ani aadaan u naxay. Calaamadna wejiga way ku lahayd. Markaas isdhahay gabadha ree aakhiraad miyaa saaxiibow. Shakiyaa bay gal. Waxaan islahaa way baxaysaa. Gabadhana markii dambe waxay tiri warheedhe Maxamedow ma socdee. Waxaan rabaa bustaan ku seexdo iyo wixii aan ku seexan lahaa diyaaray. Kadib bustii wixii aan u sameeyay gabadha wayba seexataba ani waaba naxaba. Gabadha ree aakhiraaday ahayd maskaxdeeda waxyaalo badan ay sheegay. TV-gii waan damiyay waana seexday. Gabadhina way seexatay. Hurdo fiicanaana ii socotay isla markaas. Hal saac bar kadib waan soo kacay waxayna ahayd saqda dhexe habeennimo. Waan soo fariistay gabadha Noora ahayd ma joogtaba ani naxdin meel aadaan garan waay. Lankaan daaray guriga meel walbaan ka fiiriyay. Waan waay ani aadaan u nax albaabkana oo ii balaqnaa. Waxayna ahayd saqda dhexe habeennimo dabeel badanna way jirtay. Waxaan maqlaayay shanqar meel walba ka socota. Ani naxdin guriga dhan cidlo ahaa. Markii dambe waxaan maqlay dhinaca jaraanjarada qof inuu taagan yahay. Aadaan u naxay zaid weli waxaan sameeyo. Aan garan waay gabadha ree aakhiraadayba ahayd. Waxaan isdhahay qof ree aakhiraada ma barate. Dhinaca jikadaan soo aaday bal waxaan isdhahay xagga ku jirtaa. Jikadii markaa imaadaba gabadha waa watanaa meeshii taaganta naxdin ani aad. Waxay ku fadhiday kursi dhinaca darbigeena u sii jeeday. Ani aadaan u naxay waan qalalay waxaan sameeyo aan garan waay. Waan u wacay Noora. Way soo fiirisay waxay igu tiri waan ku dilooyaa Maxamedow. Kadib ay iga sii jeesatay. Ani waan baqday waxaan sameeyaan garan waay. Markii dambe aabahayaan wacay. Aabahay 3 jeer markaan waco iga qabtay. Waxaan ku yiri gabaraan ka bartay online-ka Facebookga waxaa la yiraahdaa Noora. Haddana jikadii fadhidaa waxay igu tiri Maxamedow waan ku dilaa aabo. Maxaan sameeyaa? Aabahay wuxuu igu yiri booliis wac 911 wac hadda. Markii dambe waxaan maqlay shanqar kabo. Waxayba ahayd Noora albaabkiisu istaagtay. Gabar caatiina ahayd waxay igu tiri Maxamedow mindi weynaa waan ku dilooyaa xaggee galaysaa. Ana aabahayaan la hadlaayay. Aabahay wuxuu igu yiri gabadhaas waxbaa ku sameyn booliiska u wac. Way igu soo oroday ayadoo qaylinaysa weliba. Mindi aad u weyn wadatay waxay igu tiri Maxamedow waan ku dilayaa waan ku qalayaa. Markaas aabahay waxaan ku yiri booliis u wacaaba gabadhan la xiray. Aabahayna line-ku ku jiray. Gabadha waa la xiray booliiska la geeyay. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday waa la baaray gabadhi. Haddaba qisadan waxay ku saabsan tahay qof micnaha hadaad ka baratid online-ka Facebook meel walba ha noqoto. Qofkaas il gaar ku fiiri qof walba ha aaminin. saaxiibow ma aragtay channel kala dhahay hal abuur. Wallahi channelkaas wax kala waaniyo. Una waalaya